عبد الرحمن وزارة arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga ayaa war qoraal u dirtay laanta afka Turkiga ee BBC-da waxayna dawladda Turkiga ka hadlaysaa ku lug lahaanshaheeda arrimaha Soomaaliya waxayna aad uga walaacsan tahay dawladda Turkiga ee wax ay ku sheegtay inay jiraan dad iyo kooxo siyaasadeed oo Soomaaliya ku sugan oo magaceeda xumeynaya oo howlaha ay Soomaaliya ka wada waji xumeynaya arrintaasina waa arrin khayr caadi ah marka bal si khaas ah arrimaha ay Soomaaliya ka wadaan ee la suurad xumeynaya ay sheegeen maxay yihiin dambaalkani BBC-da loo soo diray waxa lagu faahfaahinayaa waxyaabaha Turkiga ay ka qabato gudaha Soomaaliya tusaale waxay sheegtay in ay dawladda Soomaaliya u tababarayaan hadafku uu yahay in 15,000 oo ciidamo ah loo tababaro Soomaaliya marka la gaaro sanadkan markuu dhamaado si ciidamadaas howlgallada amniga iyo sugista amniga ay galo wareegaan ciidamada AMISOM marka ay dalka ka baxaan waxa kale oo dawladda Turkiga sheegtay in 1,000 qori oo nooca ciidamada ay ku tababartaan ay u dirtay Soomaaliya ama nooca loo yaqaan Hakim ama G3 loo yaqaan sidoo kale waxay sheegtay in ilaa 90,000 oo rasaas ah ay Soomaaliya u dirtay sanadii la soo dhaafay 2020 bishii December sida ay xog ka heshay BBC-da ee qaybta afka Turkiga hubkaasina waxa loogu talagalay baa leeyahay inay ku tababartaan ciidanka Soomaaliya laguna keydiyay xarunta Turkisom dawladda Turkiga waxa kale oo sheegtay in ilaa hadda gargaarka ay Soomaaliya gaarsiisay uu dhan yahay $1 bilyan marka Cabdinaasir ma jirtaa cid si gaara dambaalkan loogu magac dhabeeyo oo la sheegayo inay yihiin cidda suurad xumeynaysa howlgallada Turkiga Soomaaliya ka wada cid gaar ah oo dambaalkani lagu sheegay ma jirto laakiin waxaan xasuusanaa markii 19 Febraayo oo shaqaaqada ka dhacday magaalada Muqdisho in siyaasiyiin hadlay oo heerar kala duwan ay sheegeen in ciidankii loo tababaray Soomaaliya oo Turkiga tababareen loo adeegsanayo sababo siyaasadeed iyo fargelin siyaasadeed iyo caburin siyaasadeed waxa kale oo jirta in warbixintan dawladda Turkiga ay soo saartay ay ku soo hadal qaadayso ciidamada Harmacad iyo Gorgor oo ay sheegayso dawladda Turkiga in loo tababaray sidii ay amniga dalka u sugi lahaayeen howlo badan ay dalka amniga ka qabteen hubka ay haystaan uu yahay hub fudud marnaba aan loogu talagelin wax kale waxayna dawladda Turkiga sidoo kale sheegaysaa in dadkan eedeynaya dawladda Turkiga ay rabaan in dawlado kale oo shisheeye ay ku lug yeeshaan arrimaha Soomaaliya marka hadalka la soo ururiyo Turkiga wuxuu rabaa inuu iska fogeeyo eedihii muddooyinka howlgallada uu Soomaaliya ka wado gaar ahaan ciidamada imika xustay oo kale ku socday inaanay isaga waxba ka khusay hadalka sidaas u dhacaya waxay kale Turkiga sheegayaan in wax ciidan oo ka jooga Soomaaliya aysan jirin oo aanan ka ahayn tababarayaashana ay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ee ciidamada Soomaaliya Turkisomna ay ku egyihiin oo kaliya hawshoodana tababar ay tahay oo aysan jirin saldhig kale oo ay ku leeyihiin iyo howlgallo kale dana siyaasadeed oo kale oo ay kale yihiin aysan jirin